xilliyada istabayaada intay dunida unay maxaa door la soo maray بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhegeystayaal meel kasta oo aad joogtaan kulanti wanaagsan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii toddobaadlaha ahaa ee taariikhda dunida oo toddobaad kasta xiliyadan oo kale aad ka dhageysataan idaacadda hiddo istuudiyaha magaalada muqdisho barnaamijkeenna taariikhda dunida ee toddobaadkan waxaan jeclahay inaan ku eego taariikhdii hogaamiyihii madoobaa ee maraykanka ahaa ee u dagaalami jiray xuquuqda dadka madow ee maraykanka martin luther king martin luther king waxa uu ku dhashay magaalada atlanta ee gobolka georgia 15 janaayo sanadkii 1929 martin luther king waxaa dhalay wadaad masiixi ahaa oo la odhan jiray martin luther kingii weynaa asal ahaan martin waxaa lagu magacaabi jiray michael luther king jr qoyska martin luther king waxa ay aadeen qaaradda yurub sanadku markuu ahaa 1934 markaas ayay ahayd markii magaciisa loo bedelay martin luther king kii yaraa martin luther king waxa uu wax ku bartay dugsiga sare ee booker t washington oo ku yaala magaalada atlanta kadib waxa uu ku biiray morehouse college isaga oo xilligaas ay da-diisu ahayd 15 sano shahaadadiisa heerka koowaad ee jaamacadda waxa uu ku qaatay cilmiga bulshada sanadku markuu ahaa 1948 sanadkii 1951 waxa uu ka qalin jebiyey jaamacadda Crozer Theological Seminary ee magaalada Chester ee gobolka Pennsylvania isaga oo ku takhasusay barashada diimaha ama waxa loo yaqaano Bachelor of Divinity martin luther king waxa uu sii waday waxbarashadiisa isagoo ugu dambeyn shahaadada PhD ee cilmiga diimaha ka qaatay jaamacadda Boston ee dalka Mareykanka sanadku markuu ahaa 1955 martin luther king waxa uu guursaday Coretta Scott bishii June 18 sanadkii 1953 arooskaasi waxa uu ka dhacay magaaladii ay ku dhalatay haweeneydaasi Coretta oo la yiraahdo Heiberger oo ku taala Alabama dalka Mareykanka lamaanahaasi waxay isu dhaleen 4 caruur ah oo la kala oran jiray Yolanda King, Martin Luther King saddexaad, Dexter Scott King iyo Bernice King sanadkii 1954 Martin Luther King waxaa loo magacaabay inuu wadaad ka noqdo kaniisad ku taala magaalada Montgomery ee gobolka Alabama goortaas oo Martin da-diisu ay ahayd 25 sano sanadkii 1954 dacwad ay qaaday maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa ayiday cabasho uu soo gudbiyay nin la oran jiray Mr Brown oo ahaa nin madow oo isla markaa ka soo horjeeday sharciga koonfurta dalka Mareykanka oo kala soocayay ardayda cadaanka iyo kuwa madowga ah go'aankaas waxay maxkamaddu sheegtay in kala sooca ardaydu uu ka soo horjeedo dastuurka dalka Mareykanka arrintaasi waxay keentay arrimo aad u badan waa mide waxay rajo gelisay dadkii madowga ahaa waa midda labaade waxa ay ka caraysiisay dadkii cadaanka ahaa ee ka faani jiray in ay dhex galaan dadka madowga ah kuwaas oo ay yasi jireen arrintaasi waxaa sidoo kale ay rajo ku abuurtay Martin Luther King oo markastaba maanka ku hayay u dagaalamida xuquuqda dadka madow ayaa waxa uu xubin ka noqday guddiga fulinta ee ururkii la oran jiray National Association for the Advancement of Colored People ama ururka wadaniga ah ee horumarinta dadka midabada leh bishii December sanadkii 1955 Martin waxa uu horseed ka ahaa is-hortaag lagu sameeyay basaskii ay kala raaci jireen
dadka caddaanka ah iyo kuwa madow ee magaalada Montgomery xilligaas oo dadka madow aan loo ogolaan jirin in ay raacaan basaskii qaadi jiray dadka caddaanka ah. qaadacaadaas waxa ay socotay muddo 385 maalmood ah. intii uu socday ololahaas, Martin Luther King waxaa soo gaarayay hanjabaado dil ah oo loogu soo dirayay taleefanka ama iimaylada oo xilligaas Mareykanka oo kaliya laga isticmaali jiray. xaaladda ayaa markii dambe aad u adkaatay, taasina waxay keentay in Martin Luther King la xiro, gurigiisiina bambooyin lala dhaco. ugu dambeyn kacdoonkii waxa uu soo gabagaboobay sanadkii 1956 kadib markii maxkamadda sare ee Mareykanka ay xaaraan ka dhigtay midabtakoorkii ka jiray gaadiidka dadweynaha oo waqtigaasi caddaanka iyo madowga aanay basas wada raaci jirin. waqtigaas wixii ka dambeeyay, dadka caddaanka ah iyo kuwa madow ee Mareykanka waxa ay wada raaci jireen basaska. Martin Luther Kingna waxaa loo aqoonsaday hogaamiye caan ah oo difaaca xuquuqda dadka madow. Martin Luther King waxa uu dib ugu laabtay magaalada Atlanta sanadkii 1959 kadib markii uu ku guuleystay qaadacaadii basaska ee ka jirtay magaalada Montgomery. Martin waxa uu ku laabtay Atlanta waxaana loo doortay inuu hogaamiyo urur la oran jiray Southern Christian Leadership Conference ama ururka hoggaanka masiixiyiinta koonfureed. ururkaas oo la aasaasay sanadkii 1957. waxaa kale oo Martin loo doortay inuu aabihiis oo markaas ahaa madaxa kaniisadaha uu u noqdo ku-xigeen. bilowgii sanadkii 1960 Martin Luther King waxa uu qabanqaabiyey mudaaharaadyo aad u badnaa oo hareeyay koonfurta Mareykanka. mudaaharaadyadani waxay ahaayeen kuwo nabad ah una badnaa fadhi dadku ay fariisanayeen meel fagaaro ah isla markaana ay aamusayaan. sanadku markuu ahaa 1963 waxaa dhacday in booliiska magaalada Birmingham ee gobolka Alabama ay go'aansadeen in ay mudaaharaadka xoog ku kala kaxeeyaan iyagoo isticmaalayay eeyo booyadaha dabka damiye oo biyo xooggan ku tuurayay dadkii halkaa fadhiyey. dhacdadan kadib, Martin Luther King waxa uu doonay in xabsiga loo taxaabo si arrintu ay u sii weynaato. Martin xabsiga ayaa loo taxaabay. intii uu xidhnaa wuxuu qoray waraaq ka koobnayd 20 bog looguna magac daray warqadii ka timid xabsiga Birmingham ama A Letter from Birmingham Jail. mudaaharaadkii Birmingham kadib 28 Agost sanadkii 1963 Martin Luther King waxa uu hogaamiyey mudaaharaadkii weynaa ee Washington, kaas oo ay ka soo qayb galeen dad ka badan 20,000 isla markaana dalbanayay shaqo iyo xorriyad. halka ayay ahayd markii Martin Luther King uu ka akhriyay khudbadiisii caanka ahayd ee la magac baxday waxbaan ku riyoonayaa ama I have a dream. Martin Luther King khudbadiisii caanka ahayd ee la magac baxday waxbaan ku riyoonayaa ama I have a dream. khudbadaasi ayaa u dhacaysay sida tan: So even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. inkastoo maanta aan wajahayno dhibaatooyinka maanta iyo kuwa berri, weli waxbaan ku riyoonayaa. riyadaas oo ah mid ku dhex xididaysatay riyada Mareykanka. waxaan ku riyoonayaa in maalin uun qarankani uu toosi doono si ay ugu noolaadaan nuxurka dhabta ah ee caqiidadooda. waxaan ku riyoonayaa in maalin uun buuraha guduudan ee gobolka Georgia dushooda ay wiilasha dadkii la adoonsan jiray iyo wiilasha kuwii adoonsan jiray ay wada fadhiisan doonaan miiska walaalnimada. waxaan ku riyoonayaa in maalin uun xitaa gobolka Mississippi oo ah gobol la karkaraya kulaylka cadaalad darrada, la karkaraya kulaylka dulmiga, uu isu bedeli doono meel loo soo doonto xorriyadda iyo cadaaladda. waxaan ku riyoonayaa in carruurtayda yaryar ee 4 ah ay ku noolaan doonaan meel aan lagu xugmin doonin midabkooda madow, balse loo eegi doono dabeecaddooda iyo tayadooda. waan riyoonayaa maanta. waxaan ku riyoonayaa in maalin uun gobolka Alabama oo ay degan yihiin cadow midabta koor ah
iyo guddoomiye gobol oo dibnihiisu ay ka da'ayaan erayo kala faquuq iyo diidmo ah. maalin uu meeshaas waa alabame ay wiilal yaryar oo caddaan ah iyo wiilal yaryar oo madow ah ay gacmaha isqabsan doonaan. sidoo kale gabdho yaryar oo caddaan ah iyo gabdho yaryar oo madow ah ay gamcaha isqabsan doonaan iyaga oo walaalo ah. waan riyoonayaa maanta, waxaan ku riyoonayaa in maalin dooxo walba la buuxin doono, haaraha la gaabin doono, meelaha qarfaha ah laga dhigi doono meelo siman, meelaha luuqluuqa ahna laga dhigi doono kuwo toobiye ah. naxariista ilaahna shaaca laga qaadi doono oo dadka oo dhan ay wada arki doonaan. tan ayaa ah himiladayda, tan ayaa ah caqiidada aan kula laaban doono koonfur. innagoo aaminsan caqiidadaas ayaannu dhambali doonnaa buuraha rajaxumada. annagoo aaminsan caqiidadaas ayaannu ismaandhaafka ka jira dalkeenna u beddeli doonnaa cod qurux badan oo walaalnimo ah. innagoo aaminsan caqiidadaas ayaannu wada shaqayn doonnaa, wada halgami doonnaa, xabsiga wada geli doonnaa, u istaagi doonnaa madax bannaanideenna, innagoo og in maalin xor aan noqon doonno. tan waxay noqon doontaa marka dhammaan khalqiga eebbe ay awoodi doonaan inay ku heesaan aragti cusub. dalkaygow waxaa tahay dhulkii macaanaa ee xorriyadda, adaan kuu heesayaa. dhulkii ay aabbayaashay ku dhinteen, dhulkii ay ku faanayeen xujayda, buur kasta dhinaceeda xorriyaddu ha ka shanqarto. haddii ay tahay in maraykanku uu noqdo dal weyn, tan waa inay rumowdaa. xorriyaddu ha ka shanqarto fiinta buuraha cajiibka ah ee gobolka new hampshire. xorriyaddu ha ka shanqarto fiinta buuraha new york. xorriyaddu ha ka shanqarto dalcadaha alleginis ee ku yaala gobolka pennsylvania. xorriyaddu ha ka shanqarto jaballada barafku daboolay ee colorado. xorriyaddu ha ka shanqarto hoobadka lexleexsan ee california. intaa oo keliya ma aha, xorriyaddu ha ka shanqarto buuraha dhagaxa ah ee georgia. xorriyaddu ha ka shanqarto buuraha soo eegaya gobolka tennessee. xorriyaddu ha ka shanqarto haaraha iyo godadka faranfarka ee mississippi. buur kasta dhinaceeda xorriyaddu ha ka shanqarto. marka ay taasi dhacdo oo aan oggolaanno in xorriyaddu dhawaaqdo, marka aan oggolaanno in xorriyaddu ka dhawaaqdo tuulo kasta, gobol kasta, magaalo kasta, waxaan awoodi doonnaa in aan dardar gelinno. marka dhammaan uunka ilaah, madow iyo caddaan, yuhuud iyo kuwo aan yuhuud ahayn, masiixiga, waxa ay awoodi doonaan in ay gacmaha isqabsadaan oo aan ku haysno erayadii wadaadkii madoobaa ee ahaa waan xoroobaynaa ugu dambayn, waan xoroobaynaa ugu dambayn. allaha weyn ayaa mahad leh, waan xoroobaynaa ugu dambayn. Jews and Gentiles, Protestants and Catholics will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last. sanadkii 1964 Martin Luther King waxaa la guddoonsiiyey bilad sharafta loo yaqaano Nobel Peace Prize, isla markaana waxaa la mamnuucay midabta koorkii iyo kala soocii dadka ee ka jiray dalka Mareykanka. arrintani aad ayay u qancisay Martin Luther King. wuxuu qabanqaabiyey mudaaharaadkii Selma, Alabama, St. Augustana oo ku taala Florida, iyo socodkii dheeraa ee laga soo bilaabay Selma laguna yimid Montgomery sanadkii 1963. bilowgii sanadkii 1966 waxa uu u soo wareegay dhinaca waqooyi ee Mareykanka, isaga oo ka bilaabay meelaha dadka madow deganaayeen ee magaalada Chicago. sanadkii xigay waxa uu ka hadlay isu soo bax ka dhacay New York, kaas oo uu ku diidanaa dagaalkii Vietnam iyo in aanay bannaanayn in Mareykanku ku lug lahaado dagaalkaasi. halkaas waxaa ka bilowday dhaqdhaqaaqii gacanka hadalka ahaa ee madowga ama wixii la oran jiray Black Power Movement. dhaqdhaqaaqan
ayaa xal u arkayay in ay habboon tahay in dagaal iyo gacan ka hadal la bilaabo, taas oo keentay iska hor imaad ka dhacay magaalooyin badan oo ay ka mid yihiin Detroit, Chicago, Cincinnati iyo Newark. haddaba si uu uga hortago gacan ka hadalka sanadkii 1968 Martin Luther King waxa uu bilaabay olole cusub oo la magac baxay ololihii dadka saboolka ah ama Poor People's Campaign, taasoo uu ku muujinayay in halgankiisu ku salaysan yahay mudaaharaad nabada oo aanu gacan ka hadal shaqo ku lahayn. xilligii guga ee isla sanadkaas Dr. Martin Luther King waxaa lagu casumay inuu ka hadlo mudaaharaad ay soo qaban qaabiyeen shaqaalaha nadaafadda ee gobolka Tennessee ee dalka Mareykanka. markaas ayay ahayd markii la toogtay Martin Luther King isaga oo xabad lala beegsaday isaga oo taagan hoteelkii uu deganaa ee magaalada Memphis ee dalka Mareykanka. halkaas ayuu ku geeriyooday Martin Luther King. aaskiisii waxa uu dhacay 4 bishii Abriil sanadkii 1968. aaskii Martin Luther King waxaa ka soo qayb galay dad ka badan 60,000 oo qof oo murugo aad u ba'an wajiyadooda ay ka muuqdeen. Martin Luther King waxaa lagu aasay magaalada Atlanta ee gobolka Georgia sanadkii 1973 ayaa gobolka Illinois uu bilaabay dabaaldega dhalashadii Martin Luther King. gobollo badan ayaa ku dayday Illinois 10 sano kadib. madaxweynihii Mareykanka ee la oran jiray Ronald Reagan ayaa saxiixay in dhammaan dalka looga dabaaldego dhalashadii Martin Luther King oo loo aqoonsaday maalintaas inay tahay maalin weyn oo Mareykanka laga xuso isla markaana fasax laga yahay shaqooyinka. laga soo bilaabo bishii 20 sanadkii 1986 waxaa dalka Mareykanka oo dhan looga dabaaldegaa dhalashada ama maalintii uu dhashay Martin Luther King oo ahaa hogaamiye madow ah oo u dhaqdhaqaaqi jiray xuquuqda dadka Mareykanka madow. dhageystayaal, guud ahaanna barnaamijkii taariikhda dunida ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay hogaamiyihii madoobaa ee Mareykanka ahaa ee u dhaqdhaqaaqi jiray xuquuqda dadka Mareykanka madow Martin Luther King, intaa ayaan kusoo gabagabaynayaa. intaan dib ugu kulmi doono barnaamijkan la mid ah waa soo saaraha barnaamijka taariikhda dunida ee idaacadda Hiddo Ismaaciil Sheekh Khalifa oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.